madaxda guud ahaan iyo bulshaweynta madashan caawa isugu timi iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibadba kala socota munaasabadan taariikhiga ah waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyadoo ay tahay 26 Juun munaasabadanna ay tahay baa la yiri hadalka hal la soo koobo marka waxaan isleenahay arrinta malaadiba lagu noqon doona laakiin wiig dhan baynu haysanaa oo aynu doodan midnimadii qarannimada iyo geedi socodkeena ka hadli doono sida la ajigeed qodobada nuxurkeeda iyo miisaankeeda iyo munaasabadan wixii laga oran lahaa waxaynu u dhaafinaa madaxda naga sareysa dhowr qodob baan rabaa inaan halkan ka tilmaamo haddii dadka qaar uu muran kaga jiro dunta isku xidha dadka Soomaaliyeed waxa cadaynaysa in dunguuna iyo xadhka durugsan ay isku kan xidhaan suugaantii halkan maanta oo dhan ka socotay 63 sano ka hor ayaa markii u horeysay calan laga taago gayiga Soomaaliyeed laga qaaday laga tiriyay hal abuurka iyo suugaanta maanta aynu halkan ku hayno oo da'yartu ay qaadayso aan xilliga u soo joogin waxaan rabaa inaan kaliya in xasuusiyo inaynu dub ugu noqonno bal dareenkii habeenka jiray ama maalinta jiray markii uu timacade lahaa kaana siib kan nasar sareeyo man nusqaamo an siduu yahay eege kaana siib kan nasar markii uu lahaa dareenkii jiray yiri diiladii jirtay mixibadii jirtay yuhuntii iyo hilowgii dadka ku jiray marna inaynu ilowna maaha inkastoo ayaamo badan oo qaraad ay ka dambeeyeen oo wax badan la kala tirsaday oo dalku uu inaga burburay oo inu dib u soo yeegleelayno lama ilaawi karo midhaha iyo macnaha maalintaas halka yaalay asalkuna waa taaway qof walba oo Soomaaliyeed madaxweyne oo adduunka cidhifyadiisa aynu ku soo aragno markaynu safarno wuxuu inoo sheegaya inuu sugayo maalintu dalka ku soo noqon lahaa mas'uuliyadaasina annaga intaydan halka fadhida iyo inta kale Soomaaliyeed ee hoggaanka haysata ay saaran tahay qodobka labaadan ku daraa waxa weeye waayihii markaa jiray ee gumaysi la dirarka ee dalka lagu dhisayay ee la iskaga kicinayay ee dawladnimada lagu hilgeliyay waayo la midaba jira hadda sida Sheekh Somo uu inoo sheegay cadow baynu leenahay dadkeenii barakiciyay laynaya halis gelinaya raggii maalinta u kacaysay ugu kaceen oo dhexda u xidheen baa inagana laynaga rabaa marka gumaysi cad in la iska kiciyo ma aha kan dadkii gumaadaya ee aynu isku diinteenina sheeganaya midabkeenina leh isna waa la iska kiciyo taasina way iga dardaaran ugu dambayn waxaan rabaa inaan xasuusiyo qolyaha reer koonfureed waragga maantan soo dhaliyay ee waqooyiga halgan intay ka galeen keenay gobonnimadii u horeysay taliyayaasha iyo ragga halka fadhiya horta waa raggii taliyayaashaydin ahaa ee jaamac yare iyo Axmed Jaamac Muuse ay ka mid ahaayeen iyo qorsheel iyo wasiirada halkan fadhiya waa raggii golayaasha fadhii jiray ee dawladnimada wax ku tari jiray reer waqooyi waa raggii suugaanta iyo midnimada iyo gobonnimada Soomaaliyeed naf iyo maalba u horay ragga maanta la baadi goobaya horta haddii qolyaha dambe ay ilaaween waa raggii magac iyo maamuusba u sameeyay qarannimada Soomaaliyeed ee magaca Soomaaliyeed marka arrintan yaan la dhayalsan mudane madaxweyne waxaan ku soo gunaanadaya waxaan u malaynayaa xilligeedii waa la joogaa xilligii la geli lahaa wada hadal macna leh oo xalliya arrinta gaamurtay ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin inuu nabad bash iyo barwaaqo gaarsiiyo hoggaanka dalkuna waa la dhan yahay arrintaasi si mug iyo baaxad looga shaqeynaya intaasan hadalkayga ku soo koobaya madaxdan inta kale u deynaya waa mahadsantiin